General revision about monthly exam, advanced students, middle and beginner students. kusoo dhawaada casharadeenii markaasi general revisionka ee muraajacada guud. ardayda guud ahaan macadku waxaynu kala qaybinay bishan examka la geli doono laba qaybood. kuwa advanced ah, kuwan waxa weeye middle students and beginner students. so wixii middle ah oo dhexdhexaad ah misena beginner ah isku examkoodii waa exam midaysan. sidoo kale wixii advanced ana waxa weeye iyagana sidoo kale waa exam midaysan bay gali doonaan. kuwa habeenka dhigto iyo maalinta dhigtana isku exam bay noqon doonaan insha Allah. waxaan rabaa markaa inaan halkan idinka soo gudbiyo sharaxaada marka revisionka insha Allah. di video aan kusoo gaaro sabtaadi kale la wadaag. okay, aan kusii hormaro advanced students part 1. translate into English. waxaad u turjumaysaa luqadda Ingiriisiga ee aad u turjumaysaa. number 1, I dreamed about you. I dreamed about you waxaa loola jeedaa adig ayaan kugu riyooday. I dreamed about you, adig ayaan kugu riyooday. number 2, now or later. now or later waxaa loola jeedaa had mise hadow. okay, number 3, we finally met. afan halkaasi met aa laga rabaa, double e ma hal e baa laga rabaa. we finally met face to face. ugu dambeyntii waxaynu u kulanay si kafool ah. okay, number 4, let's the pen out of the bag. waxaad haysid soo daa. okay, number 5, you cost no penny by me. you cost no penny by me. wax qiimo yar iguma fadhiso. number 6, try to speak frankly. isku day inaad u hadasho si wanaagsan. try to speak frankly. isku day inaad u hadasho si wanaagsan. okay, qaybtaas waxay ahayd qaybta koowaad ee part 1ka. qaybta labaad ayaynu u gudbaynaa insha Allah. qaybta labaad ayadana waxa weeye waa bring the opposite words. waxaad keenaysaa ereyadii kasoo horjeeda baad keenaysaa oo erey kasta waxay noo qoran ereyga kasoo horjeeda baa inoo qoran. number 2, cruel. ereygaasi cruel means waa xaasid minaha. xaasid waxaa kasoo horjeeda kind, naxariis leh. kind, naxariis leh. number 2, combine waa isku darid misana isku geyn. okay, waxaa kasoo horjeeda ereyga separate. separate means waa kala geyn misana kala saarid. 3, waa save waa kaydin. save waa kaydin. okay, waxaa kasoo horjeeda ereyga spend. spend waxa weeye qarash gareyn misana beer tarayn. 4, nosy. nosy means waa qaylo badan misana buuq badan. waxaa kasoo horjeeda ereyga quiet degan misana xasiloon. number 5, natural. natural waa dabiici ah. so waxaa kasoo horjeeda artificial. artificial means waa gacan ku samays. number 6, complex. complex waa erey complex means waxa weeye adag. waxaa kasoo horjeeda ereyga simple. fudud mina. simple micnihiisu waxa weeye fudud. insha Allah qaybta waxay ahayd qaybta labaad bay ahayd. waxaynu gudbaynaa qayb saddexaad. qayb saddexaad waxa weeye bring their meaning. erayadan waxaad keenaysaa micnahoodii baad keenaysaa. erey ugu horeeyo waa defame. defame means waxa weeye ceebeyn. number 2, prestige waa sharaf. number 3, dizzy waxa weeye doqon ah misana nacas ah. number 4 waa occasion. occasion waa munaasabad. number 6, comrade waxa weeye saaxiib. number 4, eliminate. eliminate means waa tirtirid misana baabi'in. qaybta ayadan waxay ahayd bring their meaning oo waxa weeye ereygii ayaa ku qoran. ee hodhow waxaad keeni doontaa erey micnihiisa. waxaynu gudbaynaa part 4. qaybta afraad baynu gudbaynaa. waa fill in the blank area. meesha banaan baad buuxinaysaa. maxaad ku buuxinaysaa aynu isla aragno. meeshan waxay noo qoran irregular verbs, ficilo markaasi isbedelayo. waxa weeye qaybtan presentiga in lagu soo qoro. qaybta pastiga iyo ppda bina buuxsa laga rabaa markaa. tusaale ahaan ficilka write waa present verb. waxaa laga rabaa hodhow marka inaad ka dhigto past oo aad dhahdo wrote. haddana bb inaad ka dhigta laga rabo oo aad dhahdo waxa weeye aad u qorto writing. waxaa labo waxa weeye still means waa xadid waa ereygaas.
past ka dhig waa stole, bb ka dhig stolen. Okay, number 3 waa shine. Shine means waa ifaya misana dhalaalaya. Past ka dhig shone. Okay, bb ka dhig waa shone. Okay, sidiisii kusoo laabanaya. halkaa markaad joogtana waxa way qaybtana qaadanaysaa presentiga haddaad rabto d un baad ku daraysaa. shined waa dhihi kartaa qaybta bb-da oo lagu ogol yahay. 4 c. Okay, c waxa weeye waa aragti oo kale misana arkin. so waxa weeye fiilka marka passaad ka dhigaysid waxaa laga rabaa inaad dhahdo saw, bb-dan waxa weeye seen inaad dhahdo. kasoo 5 pay waa bixin, bixin. pass ka dhig paid, bb ka dhig paid. Okay, 6 leave waa ka tagid, pass ka dhig left, bb ka dhig left. inta waxay ahayn waa fill in the blank area. meesha passiga lagu banaynaya, meesha bb-dan lagu banaynaya. inshallah adiga ay buuxin doonaa. Okay, sidoodii kusoo baro. waxa way qaybta ugu dambayso waa part 5. afwan meesha waxa laga rabaa 5 laga rabaa. part 5 waa qayb shanaad weey. waa change to other tenses. waxaad u bedelaysaa tensayaasha kale aad u bedelaysaa. change to other tenses, tensayaasha kale ayaa markaad u bedelaysaa. jumladaas inshallah soo baro oo usoo bedel tensayaasha kale. waxayna jumladan waxay tahay she wrote the lesson. ayadu waxay qortay casharka. jumladan waxa way waa simple past. haday simple past ay tahay maxaa ka maqan? coiton tense ka maqan, sida simple present kaliya markuu horeyso, simple present, present continuous tense, simple future, waxa way past continuous, present perfect, past present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect iyo future perfect continuous. intaas aad kaga yeesaaminaha coiton ka tense aad u bedelaysaa. inshallah waxaan u gudbayaa waxa weeye qaybta middle students and beginner students. ardayda markaasi dhexdhexaadka iyo ku bilowga qaybtoodii baan u gudbayaa iyagana. qaybta ugu horeysa horta waa part 1. ardayda advancedka iyo kuwa middleka iyo beginnerga intaba qaybta ugu horeysa waad ka simintihiin. imtixaanku waa isku mid. waxay noogu soo horeeyay part 1 translate into English. jumladahan soo socda waxaa u turjumaysaa luqadda Ingiriisiga u turjumaysaa. number 2 I dreamed about you. I dreamed about you waxa weeye adiga ayaan kugu riyooday. okay, number 2 now or later. now or later waxa weeye hadda mise hadhow. number 3 we finally met ala ramesha hal ikatar. we finally met face to face. ugu dambeyntii waxaynu u kulanay si ka foola. 4 let the pen out of the bag. waxaad haysid soo daa. 5 you cost no penny by me. wax qiima, you cost no penny by me, wax qiima iguma fadhiso. 6 try to speak frankly. isku day inaad u hadasho si wanaagsan. maxaa weeye si wanaagsan. part 2 ayaan gudbaynaa qaybta labaad. waxaa lagu leeyahay bring the upside words. waxaa keenaysaa ereyadii kasoo horjeeday baad keenaysaa. ereyadii kasoo horjeeday ayaa markaasi aad keenaysaa. okay, ereygu horeeyo waa fast waa degdeg. waxaa kasoo horjeeda slow oo ah tartiib. okay, give waa siin. waxaa kasoo horjeeda take qaadasho. okay, 3 full waa buuxa misana dhammaystiran. waxaa kasoo horjeeda ereyga empty ayaa kasoo horjeeda. okay, misana empty saa u garanayso ugu dhawaaq. waxa weeye ereygaasi means waxa weeye waa ever misana faaruqa. 4 waxa weeye sick means waa xanuunsan misana jiran. waxa weeye ereyga waxaa kasoo horjeeda ereyga healthy means caafimaad qaba. okay, 5 waxa weeye false waa false means been ah aan run ahayn. so waxaa kasoo horjeeda ereyga false waxaa kasoo horjeeda ereyga loo yaqaano true oo run ah. okay, number 6 waa begin waa bilaabasho. okay, waxaa kasoo horjeeda ereyga ah end oo ah dhamaad. part 3 baan gudbaynaa qaybta saddexaad. waxaa lagu leeyahay bring their meaning. erayadan micnahooda keen. number 1 waa lazy means caajis badan. number 2 active waxa weeye firfircoon. number 3 waa hobby waa balwad. okay, number 4 waa repeat kusoo celin. number 5 hard adag. number 6 waxa weeye oversea means waa dibad. part 4 qaybta afraad translate into English. ingiriiska ayaa u turjumaysaa. number 2 polite
polite means waa edeb leh minaha hore waxa lagu keenayaa polite waxa lagu keenayaa afwan edeb leh ayaa lagu keenayaa polite baa laga rabaa after means waa katib before waa ka hor reporter waxa weeye wariye awful waxa weeye wanaagsan fortune waxa weeye nasiib wanaag waxaynu isla eegaynaa ugu dambeyntii qaybta jadwalka examka aynu isla fiirinaynaa insha Allah isniinta oo maanta ay tahay taariikhdu waxa weeye maanta taariikhdu waa 30 afan taariikh halka wayna yara qaldan tahay maanta waa isniin ah waxaan dhammaan ku tahan ardayda advanced-ka iyo bilowga advanced-ka iyo waxa weeye kuwa dhexdhexaadka bilowga intaba maanta waxaynu misan waxay leeyihiin maanta waxa loo yaqaano oral practice-ka maanta ardayda ay yeelan doonaan wada shaqaysiga waxa lagu saxeeyaa misan ardaygu uu ku helayaa dhibco gaaraya 30 dhibcood ayuu markaasi uu ku helayaa ardayda dhexdhexaadka iyo ardayda markaasi bilowga waxay imaan doonaan insha Allah 7 saac ilaa 8:20 inta ay leeyihiin 7 saac ayuu bilaabanayaa wada shaqaysigoodii ilaa wuxuu ku dhamaanay masana uu ku egyahay 8:20 marka la gaaro waxa markaa wada shaqaysiga u bilaabanayaa waxa ardayda loo yaqaano iyagana advanced students ardayda markaasi advanced-ka ee markaasi heerkoodii sareeyo ardayda iyagana insha Allah 8 ay soo gali doonaan misana 8 ay soo gali doonaan ilaa 9:20 ayuu markaa waqtigooda uu ku egyahay iyagana waxay qaadan doonaan 30 dhibcood muhiimadu waxay tahay marka insha Allah in arday looma fiirinayo misana looma eegay waxa weeye ardayda si markaas u kala fiican yihiin arday kasta soo xaadiro arday kasta oo istaago uu shaqaysi qaato sidii uu doonaha u qaato waxa weeye 30 dhibcood uu leeyahay 30 dhibcood maxaa dhani uu leeyahay sidaas darteed maadaama fasalada ay iska yar yihiin insha Allah waqtiga waxa si uu ardaydu ugu qaybsamo waxaan sameeynaynaa insha Allah dhamaan fasalada dhan ayaa la isku qaybin doonaa macallimiinta fasalada ayaa loo wada qaybin doonaa shaqadan halka ay ka sii soconaysaa insha Allah waa maanta oo isniinta ay tahay insha Allah haddii shalay aadan joogin soo dhaqso 30 dhibcood qaado ardayda noqo arday markaas insha Allah waqtigiisii ka faa'iideysanayo macallimiintiisii shuruuciyadii macallimiintiisa wixii markaasi ay amar ah misana ay warbixina tala misana ay u soo jeedinayna arday qaadanaya noqon insha Allah okay ka gudub maanta waa isniin oral practice baynu dhamaanteeni ay wada leenahay beri oo talaada insha Allah ardayda advanced-ka ayagu way fasaxan yihiin beri oo ay talaada ay tahay advanced-ka dhammaan guud ahaan waxa weeye ardayda way fasaxnaan doonaan beri waxa imaanaya beri talaada ardayda loo yaqaano middle and beginner students ardaydaasi middle and beginner studentsku 7 saac iyo wuxuu u bilaabana examkooda aan 7 saac iyo 40 ayuu u bilaabana ilaa wuxuu ku egyahay 9 saac ayuu ku egyahay misana qof baxdii sidii uu ku dhameysto 7 saac 40 imtixaanku waa la qaybinayaa ilaa inta adiga kugu xiran tahay biyadii aad ka shaqeyso examkaaga UD baad ka shaqeyso aad bixi kartaa hadee waqti lagu qabana ma laha marka beri talaada examka caadiga ayaa la geli doonaa insha Allah revisionkiisana waa ka idinka muuqdo okay sidoo kale arbacada marka maalinta arbacada insha Allah ay soo socoto waxaan iska le ardayda advanced-ka ardayda heerkoodii sare ayaga ayaa iska le insha Allah 8 ayuu u bilaabanayaa imtixaanka 8 ayuu bilaabanayaa sax 8 ka hor arday waa inuu isxaliyaa oo wixii markaa qarash lagu leeyahay waa inuu iska bixiyaa si waqti uu saamaxo inuu uu baxo sidaas darteed arbacadu ardayda middle-ka iyo waxa weeye ardayda markaasi beginner-ga intaba way fasaxan yihiin waxa kaliya exam laga qaadaya ardayda advanced-ka okay jadwalkeena insha Allah sida ayuu noo ahaanayaa examka maalinta talaadada iyo maalinta arbacada waxa lagu saxeeyay markaasi 7 ayaa lagu saxeeyay revisionkiisana waa ka oo labada dhinacba insha Allah frinta haday idin soo gaarto la wadaaga asxaabtiini ardayda kale la wadaaga si marka frinta ay u gaarto waa ustaadkeeni Ustaad Said Cabdul Ibrahim oo markaasi idin leh waqtiga idin wacnaado bilaa tawfiiq